mar haddaad qur-aanka iyo sunnaha qaadir ku addeecdid qasadnaad u leedahay nikaax waa laguu qabane afkana uma kala qaadayaan adiga qayrkaaye sidaad inaad gogosha dhab u qaabishay hiba u qaateene quratul cayni mooye war kale waa qajilayaane inaad gogosho dhab u qaabishay hiba u qaateene mar haddii nikaax kuu qabto qaadir kugu beego jirka nimanka laga qarinayay kuu qayaxayaane qosol dibadda laga soo maqliya qaylo dheer ma lehe dhoolaha markay qaawiso gacanta kuu qaado saxan saxade qiimaha badnayd sawqadaarin mayseed haddii tan ugu qurux daran adiga qaadir kugu beego kumanyaal xubnaha qaawiyey qiimo dheer tahaye qasadkaa lahayd baa rabbigay kuu qadimayaaye owlaad waxaa ugu qurxoon qaar ku shaabahaye qalbigaad ka negidahay markay midab ka qaataane ilqabow sataraaxa lehe sawqadaarin mayseed qaraabiya martiba ducada waa kaaga qubayaane qolka looma soo dhaafi karo qaybta dibadaahe qolka looma soo dhaafi karo qaybta dibadaahe qolka looma soo dhaafi karo qaybta dibadaahe qadartoo dhammaatiyo rabbiyo qaata mooyaane qabrigaydin kala geynaye sawqadaarin mayseed owlaad waxaa ugu qurxoon qaar ku shaabahaye qalbigaad ka negidahay markay midab ka qaataane qalbigaad ka negidahay markay midabka qaataane qanaacada waxaa kaaga daran qarash yaraantood bismillahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ayuha alikhwatu fi llah mowduuca darsigeenna galabta sida sheekhu u sheegay waa alzawaaju fi lislaami fawaa'id wa asraar guurka islaamnimada dhexdiisa ama dhexdeeda guurka shareecadu say u jidaysay iyo maxaa faa'iide iyo sir ku jirta waxaa laga maarmaana inaan tilmaanno in diinta islaamku khasaa'isteeda ay ka mid tahay ashumuuliya shumuuliyada waxaa laga wadaa inaynan waxba ka tegin oo ay tahay diin baahida bini aadamka dhammaantii dabooshay axkaamna ka dejisay qaybaha ugu yar iyo qaybaha ugu sarreeya ee ugu weynba waa diin ka dejisay nidaam iyo xeer ka dejisay suuliga markaad galayso sidaad u xaajo gudan lahay fii sunan abi daawuud waxaa ku yimid xadiidkii saxiixa ahaa ee tilmaamayey inuu nin yahuudiya u yimid salmaan alfarisi saxaabigii jaliilka ah oo uu ku yidhi laqad callamakum nebiyukum kulla shayin xata alkhiraa'a nebigiinnu wuxuu idin baray wax kasta xataa qaabka aada u xaaja gudanaysaan markaasaa wuxuu idhi ajal haabuu wuuna baray qaabkiibuu marka sheegay marka diinteennu waxay ka hadashay suuliga aadaabta loo galo sida loo xaajo guto aadaabta sida looga soo baxo kullu daalikay ka hadashay diinta marka suuliga xeer u dejisay iyo qaabkii loo xaajo gudan lahaa nolosha inteeda kale inay xeer iyo nidaam u dejisaa waa arrin iska badiihi oo iska cadwe waxay leedahay nidaam dhaqaale oo aada u xeel dheer oon la gaadhi karin waxay leedahay dastuur shaamil ah oo ay nolosha ugu tala gashay waxay leedahay xeer qoys oo qoyska laga bilaabo dhisiddiisa ilaa xuquuqdiisa oo dhan bay kala dhigdhigisa waxay leedahay nidaam dagaal oo markii ay noqoto inay dagaalanto qaanuun iyo nidaam iyo aadaab bay leedahay mujtamacaadka kale muslimka ahayn xidhiirhkay la yeelanayso axkaam iyo aadaab bay leedahay wahaakadaa waa diin aan waxba ka tegin marka waxaa ka mid a khasaa'isteeda ashumuuliya waxyaadaha ayna waxba ka tegin waxaa ka mid oo aada xoogga u saartay bini aadamka baahidiisa inay ka jawaabto
nidaamna u dajiso siduu baahi u heli lahaa مثلا بني آدم كضرورات كي سوى حكم إذا نرشة وحكم إذا إنه عنتهله إنه عبيتان هله إنه هوي هله إنه الرضبح يطرهله سيدو كهلي لها طريقة أقف في عم بيوتشي دي سيتشيد كأمر بالي كان كله وحكم إذا وحيالها مركا أي نظام يسوى باهيد ابن آدم ككم إذا وحل إلى هذا قضاء الشهوة siduu baahidiisa shahwo u gudan lahaa nidaam bayana u dajisay jidka umar oo qaabka baahida u gudo maslaxa ka dhalanaysa iyo faa'iido qaabka iyo sidaana ha u gudanina ka leexo dhibaata ka iimaanaysa shariicadu marka waa shariico khasaa'isteeda ay kamid tahay ash-shumuli qodobkaasi waa qodob mudan inaan tilmaano qodobka labaad ee mudan inaan tilmaano wuxuu yahay زواجك وقانون كوني ويشترك فيه الجميع قانون رباني وواحد شره وحل إلى هذا لمانها كدحية لمانها كدحية آدمه لمان ليه وجيده لمان إليه والنباتات كل لمان إليه وحيوانات كل لمان إليه وحكستو إلهي أبو ري تبارك وتعالى وحو سميي لماني أن كلام مارمين مركا قانون كوني اللي هذا معناها ومعناها ربي كنت الماما تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون شيء والبوحن كأبورني لبل لمانا أحق هذا سيئات وانا قادتان وآية من آيات الله تبارك وتعالى إلى هير اللي هذا ذرده وأنوج أغير أو شيء كسميسين يا واحد يقيب سنتا موجب يا صالب يقيب سنتا بمعنى لبل لما أو كل الدوام كرنتا أدار كيساني هذا إنه إفيسا وموجب يا صالب واي والله ما نوي هذين الله وضع سهلين كرنتا ما بحيس ومن كل شيء خلقنا زوجين والله ما نياشاوي مخلوق قرن بيك دحيس آيات كلا ربي وحي تبارك وتعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون الله وحى نزهان عيب كفك أبو ري لما نياشا نمانتوت ووحيالها دولك صوصارا بني آدم كان نفهان تودا إيا وحيالها كلين أقونين با وحبدون إن أقونين وضا لما لنا الله أبو ري تبارك وتعالى الله سان نزهان معناها وحلقة وضع برنامج أرنتان قانون كان لمانها أو لب يددق أما موجبك إيا سالبك آدمها خاص كما هو قانون عام تانا إلا تلماما يضنا وي مدنتهي إني آدم كمرك قانون كقود بولو ذاقا مخلوق إنتي سكله أو فلاقة كماها شاذ كماها قانون كاسو لو ذاقا والله مركو أبو ري آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أصل كينية مركبة وحلو أبو ري حاو هل كاسا مركب وحاكب اللوضي لمانا يعني بني آدم لمانها كلن كودا مركب ترنك بني آدم كو ساوغ السعودي إلى إنه أين السوق عني مركب وسنة ربي تبارك وتعالى كوني آدمهنا قيبوكي انت كذب إسلام كوحو كوبو ريدتك جورك أدبو جبوري وأمري إن الجورسدو أيضا فربضن حديث فربضن يا كوسو أرورتي الله تبارك وتعالى كو أمري نبي قلنا صلوات ربي والسلام عليه أمدي سكوبوري وحكم ذا الله وحده تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله كوا أن reeraha lahayn doobabka rag iyo dumarba aan guriyaha lahayn u guuriyo buu Alle tabaaraka wa taala oo adoomadiina dadka wanaagsan u guuriya reer u yeela hadday yihiin kuwa aan waxba haysanin oo fuqara ah ilaahay baa deeqaya Allah u maqano wax siinaya tabaaraka wa taala ee u guuriyo buu Alle tabaaraka wa taala فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأمر يضنا قرصد
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفربضنتها إيضنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج أوامر نوعا سائمان يسو شارعة كسو أرورت القرآن الكريم كي سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتبه وسنة الأنبياء والرسل جورك يا جورسيجو وطريقة لجسو قاري أنبياء دي إلهي الرسوشي سي لجسو قاري سيد إلهي القرآن كي نقول شيء ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية هرتار رسول بان درني بقالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هرتابان رسول درني رسوشي كاه الرئيسين درنينا مدول بوحان ويالني حاسس يا عرور بان ويال رسوش آخره مركوي جورسن شرين عرورنا ويدلي شرين مركوا سنة الأنبياء خاصة وطريق نبينا محمد صلوات ربي وسلام عليه وحوها كالضمر كأمدا وجو ضمر بدن بوها وحان السجن إنه رسولك صلى الله عليه وسلم يلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حديثك صحيح كوي من حديث أنس كوح صحابة كم ذا أيها قريها النبي صلى الله عليه وسلم مركز الضمر كي وحي ورصدين عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيدو عباديست مركز الله شيء حلقاسو توصى حلقاسو تكذا مدداسو صوما عبادة دي بالله شيء فكأنهم تقالوها واحد مدائنا يريستين مركي الله شيء وحوقا ويلا يرات مركز وحي لهذين وأنكم النبي الله منا النبي قدم بيجي سيوري كي دم والله ضافه ما يسقو كلامنا أنك وهنا واحد وين لنا ما عندهم بدينه متباسو بدو وحيد أنا ولي وان صومنا يا ما بأفري ميت كلنا وحيد أنا ولي هبين ودوا تاجنانا يا ما بصحنا من وحيد أنا كنا الضمر بجورسن ماي كوربا وبيسجى هتشري يا وكذا هيدا من وحيد أنا كنا هيلي كعون ماي النبي صلى الله عليه وسلم وركي بسوقه ورما يدين كاسيدا سيري ها أنا قاني مركز النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحنا ميت كإلهي يدين كوي قانا إذن كنا عبسي بدن بانا هيقول ساعي تهي هبين كقارنا وانسي حن قارنا وانسوتو سوى عباديس مالمها قارنا وانسومي قارنا وانافوري هيليب كان وان عني ضمر كان وان قورسن سنة إذا إيا الطريقة إيقا ننكي كالي حدنا ونعنا إيقا ميد ما هبو النبي صلى الله عليه وسلم ها سمارت واتزوج النساء ضمر كان وان قورسن قور كان ننكي كالي حدنا وقرم مرون نعاه أو نعنا إجميد ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مركوا سنة الأنبياء خاصة وسنة نبينا محمد صلوات ربي وسلام عليه سيدا درادت بعلماء الإسلام كو حكم كجور مركا اللي هذا مواجبة مصنة مستحبة بيسكو خلافه الإمام ابن حزم الظاهري وحوليه هاي جور كوا فرض عين وواجب فرض أبو زوج تغيب وحنا كفى إذا است أوامر تنكو إيمان السآيات كأي أحاديث لأنه وحلي الأمر يقتضي الوجوب أمر بهدوي ماذا أصل وإن واجبني ما فائدة هل كاسومر فوق هذا كلي الجمهور تحعان كويهين إن كلا قادان ويشنت أحكام تلي هذا كلا قادان وإذا هذا جوركم مرنا وحنا نقضى واجب مر وحنا نقضى مستحب والصنع مر وحنا نقضى مباح إسكابنان مروح النقطة حكم كيسو حرام بالنقطة مروح النقطة مكروه بالنقطة شنت أحكام تابو مرابي لها فوق هذا وكل بدتك ديك للدوان يعني وحيكوك الحين هاي اختلاف الأشخاص والأحوال والظروف بيسو خلاف حساب لي نمبا أود دينا هيا أود دينا هيا تبرد قالي أود قالنا وليه أود دي جوجشنا وهيا أود جوجشنا وهي حقي جوجش وجودن كرا حدنا الزين ويسقى بقية وخطر بوكشرة فرض عينه كوتا كاسين وجورس ديلي وواجب لازم مدبا كاس كيرا وحوجا كيرا هوسيو تبربولي أود دي وليه لكن وحبا يسقى ما بقاي سيدي سوا يسقى ضعيف جنسيا أما السيابة كلابك ينتبه إنه سنسوب قيمة وحيلين والسنة والمويان لازم كمان مدبا حاران كان نقونه ده تبرب ما هيبا سلانتي إنه لقوا يمويه قوشينا تبركوا ما هي لأنك كلام يسوع تبركوا هين بعد عكرت يا
marka muxuu gabadhan islaameed u lugoynaya marka aduusan tawarbaxinba meeliisa iska cibaadaystay leey marka shanta ahkaamta bay marinayaan oo waxay leeyihiin ahwaasha dadku way kala gedisan yihiin midba waxay qaadanaysaa xaalkiisa iyo duruuftiisa khaaska marka la fiiriyo halkaas ay marinayaan intaasi waa ishaaro til muqaddimad tilmaamid u baahan waxaan uga gudbaynaa inaynu tilmaano guurka faa'iidooyinkiisa waana qodobka muhiimka ah guurka faa'iidooyinkiisa iyo aadaabta guurka labada qodob baynu muxaadaradeena ku gabagabaynaynaa qaabkee loo guursadaa iyo maxaa guurka laga helaa fawaa'idda guurku way fara badanta waxaa kow ah oo faa'iidada ugu horeysa ay tahay baqaa'u an-naw'i al-bashari bini aadamka jiritaankiisa iyo tarankiisa iyo inuu dhulka camiro iyo inuu u kala dambeeyo waxay ku xidhan tahay guurkay ku xidhan tahay guurka ilaahay sabab uga dhigay haddii guurka la waayo bini aadamka jiritaankiisu waa baaba'aya tarankiisuna waa dabar go'aya ilaahay marka jiritaanka bini aadamku ku xifdiyay guurka saas daraadeed baa matlabka maqsadka ugu weyn ee loo guursado waa caruur in ilaahay caruur ku siiyo oo ilmo wanaagsan ku siiyo oo ilmahaasi ay adduunkaagana ku anfacaan aakhirana ku anfacaan oo ku soo duceeyaan walad saalix saas daraadeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam kama fi sunan abi daawud wa ghayrihi nimba u yimid markaas wuxuu yiri rasuul ilaahay waxaan rabaa inaan guursado haweenay aan dhalin ma dhalays ah iska daabo ku yiri waa soo noqdo haddana wuxuu yiri waxaan rabaa ma inaan guursado halii fasax ma yaabal iska daa saxaabadu soo noqdo wuxuu rasuul ilaahay halii daayo waan rabaa waa jeclahay nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam markaa kadib baa wuxuu yiri تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة guursada haweenka isjeclaysiin badan oo ragooda isjeclaysiya sababtay ku jeclaan lahaayeen ku dadaalo way dhalitaanka badan oo aad u dhala sababtu wax weeyaan waxaan idinku faan maalinta qiyaamada nabi walba ummadiisii buu keensanaya ummadaydu marka inay badataan rabaa marka ummadii nabiga inaad badiso salawaatu rabbi wa salaam alayhi oo caruur badan dhasho oo adigana ku anfacaan ummadana anfacaan waa maqsadka ugu muhiimsan way ee loo guursado wixii kale dhan waa tabac maqaasida kale dhan ama ujeedooyinka kale dhan taa bay raacsan yihiin laakiin taasa asalku waa in la tarmo oo dadka muxuu ahay caruur la dhalo taasa asal ah walad saalix oo aakhiriya adduunba ku anfaca waana midka rabbi tabaaraka wa tacaala in ugu manaystayo وربي قرآن كريم كتل مامي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة الله تبارك وتعالى وحو يلي نفتي نوحو إذن كي يلي حاسس كي نحق وضنا وحو إذن كسيو إذن كي يلي ويلل عرور إيوه كوا أو يؤتينو إذن أديغا حفدة وخدم وكوا إذن أديغو وعرورتا دشي عرورتا يسي دلين ودي markaad awow u tahay adeegaaga iyo gacan qabashadaada iyo kaalmeyntaada iyo bay u taagan yihiin Allah tabaaraka wa taala xaasaskiina inuu kuwa idinka siiyay baa galad weyna si aad Ilaahay tabaaraka wa taala ugu mahad celisaa guurka marka qasadka ugu weyn waa ka al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah fi sahih wuxuu ku baabeeyay nin walad dalbay ilmihiisana u dalbay inuu jid Ilaahay ku jihaado markaas wuxuu keenay qisadii nabi Ilaahi Sulaymaan alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam nabi Sulaymaan baa wuxuu yiri walla caaw boqol dumar uu qabay qaarna inay adoomaha in baa iska dhex karta boqol dumaraan caaw isu mari buu boqol kuba way uraysan doonaan boqol kuba wiil waxay dhali doona Ilaahay jidkiisa ku jihaado insha Allah ma dhig إن شاء الله دي بقاص بعد سادمانتود ما أوريسنين هل ميد با أوريست تينا واحد الشيء المرد كلا دمان ودما يسترنيم وامد النبي صلى الله عليه وسلم هدو إن شاء الله قدر لها بقولكم ويوريس الله هين بقولكم رويلال بيدل لها مركا إن شاء الله وقاص بعد نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركا وعوبا بيستيون البخاري عليه رحمة الله عد المد ضلبتي أو أضلبتي إنه إلهي دريقي سكو جهاد بمعنى
ilmihii wuxuu u dalbayaa u dhalaysaa u raadinaysaa inuu u khidmeeyo ummadda oo dalka u khidmeeyo oo diinta u khidmeeyo oo ummadda u khidmeeyo ayaad u dhalaysaayoo qasadkaas aad leedahay adiga inuu ku anfaco oo haddaad dhimatana kuu soo duceeyo oo waladun saalixun yadcuu lah haddaad nooshahayna goortaad u baahato uu ku gacan qabto ayaa loo dhalaa oo ilmaha loo korsadaa qasadkaasi marka waa qasadka ugu weyn oo ugu muhiimsan bini aadamka marka xifdintiisa iyo tarankiisa ku jira haddii bini aadamka isguursigiisu meesha ka baxo oo ay noqoto xaajada in banaanka lagu kala guto oo la yiraahdo meeshaad iska heshaanba sida dameerihii waa idinka xaajadiina guta sida hadda mesela ummadahaas reer galbeedku ay noqdeen iyo cadaanku halka markay gaadho taranka bini aadamku waa lumaya laba sababood waa ku lumayaayo mas'uuliyadii baa lumayso horta nin walba xaajadiisa banaankaas uu ka gudani waa mid labaad ilmihii dhalanayay aabba iyo hooyo korsada ma jirayaan meeshuu ka baxaya laana ilmaha waxa loo korsadaa lex jecelo hooyo iyo aabba loo korsadaa aabbana waa u maqan waa u soo shaqaynaya hooyana way ku dhibaatoonaysaa way korinaysaa way ku rafaadaysaa mustaqbalkay rabaan inay ilma ka dhigtaan aw natakhidahu waladan ilma inay ka dhigtaan bay rabaan laakiin haddii ilmihii danihii laga lahaa iyo iyaguna aynan dad isqababa ahayn ilmihiina rajadii laga qabay uusan lahayn bini aadamku inuu dhalo marka uma fududa dhalitaanka iyo iskuursiga dhan meeshu ka baxaya waa tan hadda haysata ummadahan reer galbeedka cadaankani khalad ay iyagu sameeyeen balaayaa gelisay ayaa maanta wax way isxaribeen يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم ويسخربين إن يسخربين واحد كو قراني قوركي بلا يقرب صعوته أو حاجة بنانك هلوك لقتابة جديين كدبن الزندي يا صاحبني ما فضوضاته قوركي نوا يرأت كهذا وامد الله بعده علمه اللي اللي حشعلده اللي قبينا وحال يدي الدولة ده بإسكاله علمها أدو دولة هذا الشيء دولة كرسانيسة خرج كيسة بحسانيسة مركو قان قاعدنا وحر ودت كيسة سودين عكجلية اسمه تقانام طيب هو محي مركو أوفولن ومحي محوها أول لعي ومحي الرفادي ومحي سحردي سي كايدي دي كفلي ومحي أوسو تشيدي ما تشرتوا sunnadii rabbi jiday markay garan mareen waxa ka dhalatay inay dumarkoodii diidaan inay dhalaan nag baa lagu kari waay wadamada qaar kood waxay gaadheen sida Norway iyo Scandinavian-ka qaar kamida waxay gaadheen inay yiraahdaan dadkii waaweynaa iyo dadkii yaryaraaba waxa batay dadkii waaweynaa intii yaryarayd baa yaraatay markaas waxa u soo baxday markay isku dardareen inay cirib go'ayaan oo mujtamaca yaryarkiisu haduu badan yahay waaweyn ku yar yihiin sideenoo kale waa mujtamac tarmayo waa laakiin mujtamaca hadii waaweyn ku bataan yaryarkuna ay yaraadaan waa mujtamac dabar go'ay waxa soo baxday marka aan dabar go'ayna tayib waxa la yiri marka dumarkii ha lagu qanciyo inay uuraystaan oo ilmo dhalaan dawaa hore ka tageenaya ku kari waa lagu kari waay waxay soo saareen inay dhiirigelin dhaqaale siiyaan oo dhahdaan haweenaydii uur qaada bisha toddobaad markay joogto $5,000 bay leedahay markay ilmaha dhashana ilmaha iyo noloshiisii oo dhan baa loo dhiibaya wuxuu ku noolaan lahaa oo dhan iyadana shaqadii waa laga fasaxayaa gurigeeday ku nasanaysa waxa la siiyay muqriyaad fara badan bay u sameeyeen haddana macdaalika dumarkii la kari waa kaliya waxa ka faa'iideystay nidaamka isaga haweenkii Soomaalida ee meesha joogay waa ka faa'iideystay ayagu sanad kastana waa iska uuraystaan sanad kastana waa iska dhalaan lacagtoodana way urursadaan lacagtoodana waa urursadaan ayagu looguma talagelin markii nidaamkan la dejinahay iyaga looguma talagelin Soomaa dumarkoodana ay ugu talagaleen inay caruur ku dhalaan kuway ugu talagaleena lagu kari waa kuwii Soomaalida iska dhaldhali jirayna lacagtin bay urursadaan Ilaahay amarkii marka waa yaani dabargo noocaas waxa keenayay sunnadii rabbi baa laga leexday oo jidkii rabbi baan aadamaha u jiday oo guurkii iyo ilmo in la korsado iyo ilmaha waalidkii in loo daayo iyo wixii oo dhan bay ka leexdeen kadibna yaani takhriibkaas ka dhacay saas daraadeed jeedadan doonay inaan gaarno waxa weeye hadafka ugu weyn ee guurku waa caruurta khaasatan
inagoo kale oo mujtamac muslim ah la inagana tira badan yahay waxaan u baahanahay inaan badanno oo tiradeenu badato waxaan saa u leeyahay mujtamacaadka inugu wareegsan oo dhan way inaga badan yihiin dawladaha inugu wareegsan oo dhan way inaga tira badan yihiin sidaas daraadeed waxaan u baahanahay inaan taranno oo aan badanno والحمد لله آد بو في عيها هذا يعني مركز لا يسكو دردراي ما حما أرنتها إيضا قضب كاسي مركز وقضب دينع والمركز لقى في ريو مصالح ده وجوا وين هي فوائد ده وجوا وين جوركا يكمل ده وحكم ده فائدوين كجوركا وحلي هذا السكينة والطمأنينة حسل يدجنان شو يراح يسويهش بالجاه لا جورك والله وضع الروح إسقاباي بني آدم كمركز لبضوا وده شوجان nolosha ka dhaxaysa waa nolosha ugu macaanka badan xasilooni isjacayl kalgacayl naxariis muxuu ahay iswaheshi isduksi ilaahay ka cabire tabaaraka wa tacaala uu yiri hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna iyaguna dharbay idinkuna dharbaad u tihiin dumarka ilaahay heerka laga cabir marka xasiloonidaasi iyadana faa'iidooyinka ugu fara badan way قرآن ربي وكتب المامي والله وحول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة الله آياتك سواوي وحا كمذا إنه نفتينا إذن كأبو ري حاسس سيادو حسيشان لتسكنوا إليها سيادو حسيشان ما ننتي يردن بعد صور شقين وصور رفاديو صور ديديو صور كديد ميو habeenkii markaad xaafadaada timaado xaaskaaga isqaabishaan wixii oo dhan baa wada halmaami qalbiga ku dagi waad nasan waad xasilooni baa dareemaysa sidaas daraadeed sakiina iyo tuma'niina ku jirta mawadda iyo kalgacayl baa ku jira faa'iidooyinka waaweyn ee laga helo ayay kamid tahay sida quraanka kariimka tilmaamay waxa kamid ah faa'iidooyinka laga helo tandiim qadaa'i ash-shahwa bila ruhbaniyya wala ibahiyya haajadaadii kugu jirtay baahidii ku haysay inaad gudato sida markaad ooman tahay aad biyo ugu baahanta oo markaad gaajaysan tahay aad cunto ugu baahanta ayaa markay shahwa ku haysana waxaad u baahan tahay inaad gudato gudashadii baa marka laynoo nadaamiyay oo dariiqan guurku baahideennii baan si saxa u gudanayna oo ilaahay raalli ka yahay oo inoo baneeyay oon dhibaato ka imaanayn taana waa faa'iido ku jirto baahidii kugu jirtay inaad iska saarto oo aad gudataay ayadana waa mid bini aadamka saddex nidaam buu kala hayaa marka la fiiriyo arinta qodobka isaga qolo waxa la yiraahdaa ruhbaaniye baahidii aadamaha ee shahwada uu baahnaa bay kabti ku sameeyeen kabti macna wax weeyaan way cadaadiyeen way qadiyeen shahwadiisii bay jabiyeen ruhbaaniya la yiraahdaa waa wadaadadii nasaarada ahaa ee duurka galay ee guurka ka tagay واتي صحابة قاركود أي دمعين والنبي قودي ده صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي يعني تبطل جور كان كتجينا وحنيها استشرينا بده ما يبالي رهبانية اللي ده هدايو إن ليسك إن رترباه هذا الشهوة ده ومضح اللي جي استاجوا الله قديه أو يعني لدوتسيه قال هالكاسي مرين قال الله بعدنا وحي مرين وقال ده إباحية ده اللي ده الفلسفة الإباحية اللي ده إباحية ده وحويان و labadan jinsi oo labkiya dhadiga meesha iska helaanba waa isku fasaxayeen yataharajuna taharuj al-humur wada haday iska helaan bridge haday iska helaan jid haday iska helaan hotel haday isku helaan meesha isku heshaanba nooca doontaan hada waa isku fasaxantay ibaahiya leeyahay ibaahiya isaguna waa falsafa khariban way waana falsafada hadda reer galbeedku tabaniyeen midda saddexaad ama dariiqa saddexaad waa dariiqa شرائع السماوية أو وروحا يان هجان كان لوسي دين باهدا يانا لقدني نو مدح يان لقى استاجيني باهدي هلا السيو وحي أي كوجد من هيدو هلا جت شوابه ندامنا الله سمي ندام الله سمي وردمر كوردن كم فسحنت دمر كنا رجعنا كم فسحنا تأفى كإيمان يسه شهوة ذي جودو شيت كعمر غير جورسو محو هاي ديسو إسأركا مسؤوليات قاد حلها كي مادو قابك الشهوة هذا أوجدو باهدا هذا أوجدو
sharaa'icda samaawigaana saasay wax u dhigtayo baahidii bay ka jawaabtay laakiin nidaam bay u dejisay taana iyadana faa'iidooyinka waaweyn ee ku jira ay ka mid tahay guurka oo in baahideennii qaabkaan ku gudan lahayn ilaahay inoo jideeyo tabaaraka wa tacaala ee baahideennii la iska dhaga tirin waxaa ka mid ah faa'iidooyinka laga faa'iidaysanayo guurka tawsiic alrawaabit alijtimaaciya bulshadii buu isku xidhahayaa guurku oo bulshadu qaarna nasab iyo abtir baa ka dhaxeeya qaarna xididtinimaa ka dhaxaysa guurku wuxuu keenayaa laba qabiiloo kala fog buu isku soo xidhahayaa dad nasab ahaan kala durugsan buu isu keenayaa xididtinimuu ka dhaxaysiinaya yacni wax weeyaan haweentaada ama xaaskaaga reerka aad ka qabtahay waad isku xidhanteen jaa hooyadeed aabbaheed walaalaheed rag iyo dumar abtiyaasheed dadkii baa isku xidhmaya sidaas daraaddeed guurku wuxuu adkaynayaa raabitada ijtimaaciga ama isku xidhka bulshada ayuu adkaynayaa faa'iidooyinka waaweyn bay ka mid tahay معناها ومعناها الرب كتل وامي تبارك وتعالى وهو الذي خلق من الباء بشرا فجعله نسبا وصهرا إلهي آدمه وحو كأبو ريبيو كدبنا وحو كدقي النصب كوا أبتر كدحيو إيو كوا حديد النما كدحيس كوا حديد كوي ما دوسا إسوكو حران إيو كوا النصب يدلش كدحيس أيضا وقضى مهمو تي دنكاسنا فإذا وين ويبلشدي إن إسكو حران تو علاقات كاسي أي سما اسمه وحكم إذا فائدوين كواوين جور كلا جهله العفاف من الفواحش الزنا هي حمان تآيات كجد ورصن ونكم مركو رير ليه ترير كيسو حاجة دي سكو جدني حمان تبو سجى إلى علينا حديث النبي جواكيها صلوات ربي والسلام عليه نين إذن كم ذا حدو أركو هويني أي عتشبيسو تيسي هكل أبتو حاجدي سهكوجت فإن الذي معها مثل الذي معه يعني تن أدركتي كعجبي سي هو شادي وحي هيساي تاتكتي ميد قبتي وحي هيسبي لمت يا لا وضو اسكمت شيطان ما كو قرقرحين ايو كله غوين يمي هل كان وحي يالي حق وحي يالي وا اسكمت بنبي صلى الله عليه وسلم ساس دراد تادا حاجده كسو غدو waxaad kaga badbaadaysaa marka yani wax weeyaan inaad faaxisho ku dhacdo oo xumaan ku dhacdo oo shahwadu ay ku kharibto ayaad kaga badbaadaysaa macnaha sidoo kale waxa tilmaamaya xadiis ibn Mas'ud fi sahihayn oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj dhalinyaroy kiini awoodi karo heli kara takaliifta guurka awood u heli kara ha guursado bu nabiga sallallahu alayhi wasallam ها حكمته كتيرة فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج إيش هذا إن هذا حمان تكلمت حبين كاجا ترى كان الزنا كإلى لسه تاسا كوجو كالمين يسوي مرك جورك وحكوجو كالمين إيش هذونا إن حمان تكلمته حبين كاجا ترى كون الزنا كحفظ اسمه والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع عيدي أن كرين خرج كجورك ونعودها إننا فعليه بالصوم هالصوم مركه فإنه له وجاء إسقى رفانيا إسقى الشهوة هذا تشبين يصونك لأن آدمها سيدي سبا ينولها أوردن مركو شركي سنفقة قشو أي شهوة دريمة مركزتو نفقة السيادة شهوة والزيادة صونك مركز نفقة دي شركة كو شرتي بو ضعيفين هذا النفقة دي ضعيفتنا شهوة دي با ضعيفيس sidaas marka kaga badbaadaysaa waa daawo nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaam alayhi waxyaalaha waxa kamida ee guurka faa'iidooyinkiisa waxa kamida al-awn min Allah wa talab al-ghina ilaahay kaalmadiisa inaad haraadiso ya hodantinimo iyo xoolana ku raadsata faqiir baa tahay waxa ma haysat haddaad ilaahay tala saarato iska guursato tiraado wallahi isaga wad wax ku helaysaa يا كور كمر بربو صواب النقطة إن الرضا خير بلغو فرات تاجر بكون نقطة وإلهي كوب قرب استاجاب تبارك وتعالى ركب ضنا واحد أركز إسكفقراء مساكين أو حتى قدد وإنتو إسك جور صدمان أنت دم بإلهي بيريدو فريو مركا
معناها وحات الماما القرآن الكريم كو الله وحده تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أجوري كوا آن خيرها لهين وإذن كإذن كمل كوا ونأكسن الضوامض الضمر كي يرجع أنا أجوري هذي فقراء وحبائين هيسن إلهي بعد دقيقة يا ليل يغنيهم الله من فضله الله فضل جيسة كدقيقة يدين ما تعلم أجوري معناها وحكى الله الماما يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورسولك يقول ثلاث حق على الله عونه صدح روح إلهي با حق أي كركي سكوتها إنه أكالمي صدح هذا سواء صدحه المجاهد في سبيل الله إلهي تشتكي سنك كوجه هذا كلابنا وحويان المكاتب والضونك سيد كيس وكحري حرين تيس خرج كحري ويريد الأداء خرج كي وحو يستقب بحيور رادينيا السجن إلهي باب الله قاعد إنه كالمي كالصدحاتنا وحويان الناكح يريد العفاف واني وح جورسنية جورسنية إنه استجا إلى لي الزنا إن تاب الصدح ذابا إلهي با حق استجا دقي كركيسة أو استصاري إنه عاوينا يو كالميني مركب واحد بلقيها بعديها رزقي لقو قريبة إنه بحلقيها بأسكيرها لكن أيضا الرزق بدل إن لو قريبة دعكرت يا كذي مركب وحكر هذه هالكاس عودي كرتوا هالكا إني ردوا تايو كوبا فرنتا لقيها معناها صوت الماما يا إلهي تبارك وتعالى وحدي كرت إنه با كوجو فره الرد رزق واسع إيو خيرات إن لقو فره دعي كرته تانا وحوي وحلاه لقى فايدة كم توحيال كم لقى فايدة وحا كم ده جور كوح مجتمع كإلالية عذر خطرة أو دلاء أو آدمها بابية كواسو كرش الزنا ده وحو النبي جينا كسر صلى الله عليه وسلم إنه يقول حديث كعبد الله بن عمر عند ابن ماجه وغيره وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم دور الريموت هي واحد كرر لنا خلادات هي نتيجة عقوبة كرر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكم ذا ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها زينة ضدك أو مجتمع الحديثة مموقته أو مموجتان إلى أي يعني أي بنانك أولى الصباحان هذا يدعو إن الزنا بنانك أولى الصباحان إلهي وحكو ابتلايا طاعونه يعذر أن هذا كهر دعين أن صامر ذاتك يكهري مركا الزنا دو فافت أو جوجل داف كفاف أو قاب خلدان أو حن لوجود تشهود اللوجود أو رجع يضمر كي إسكوف الصحمان أو بنانك الله صباح عذر باكدش عذر رضا سنة أدون كوري أم الصومر ومعناها النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم واحد شاهد أنه قن كري أما وحيالها أو كتصي تصالة أنه قن كريه عذر كان دلاجة ما أنت أدون كبابي إني إيه اللي هذا أيديس كلامه أيديسكو وهو كرر الشيء قابك خلدان خربا الشهوة اللي جودنا الزنا دو كرش حدنا طريقة وكفافه ابن آدم كو يسوق جود بيو طريقة وقفضت وقنبضا وقشوي النبي قال سيشة صلوات ربي وسلام عليه ساس درادة مجتمع مسلم كجور كوكاب صدا زندنا أين الدحديس كفاف سنين عذر كاسي نادر بكويه بينما مجتمعات كالزندو كبدا تهيبو كبدا يهاي والله يا أدون كان ما أنت سنة كستوحي دليا أنت سو مليون بدليا أنت سو مليون وبني آدم وسنة كستدليا صوتنا وطريقة دي شهوة الله قلت لك إن لو قلت يا الله قال لي حدي آفدي النبي الشيخ يبقى كرلتي عذر كاسا مركا إيمانية جوركو مركا وحو كحفظنا يا مجتمع عذر رضا خربا وحو إلى لنا يا قيمك أخلاقها رقنك وناكسنا وحي توصنا أيو آدمها أو إلى لنا يا جورك صحدي أيضا أفايدوين كيسة كميته وحكم إذا فايدوين كيسة إن هذا أشر آخر بكهش هيلا لو جور صدوا حكم إذا فايدوين كجور كلا جهله هذه النية هذا في عناته أشر بابد كهلي يعني حاجة أد جودنيسو غير كأجنا حاجة دي سأد جوديسو أنت صابد أشر آخر كهلي
يعني وحوي إلهي أكتيسة وحاب اللقو قرها يابا أجر باللقو قري هي فوائد كجرتي كمت حديث النبي قال المام صلى الله عليه وسلم رسولك وحيلي وفي بضع أحدكم صدقة متكين حبن كيس ترنك صدقوا كهلية أجربوا كهلية مركز وحينا رسول الله يو وما إنتان الشهوة النذا كوجود النو أيانو هذا أجر كهلية كراي كين هيي إنتان كوكبوا السنو ميانو اللي بأجر هذا كسيه لنا مركز النبي صلى الله عليه وسلم كور رما هدو حرام كوجود لها دم بمصور راعي لها هابي ده مركز النبي صلى الله عليه وسلم هدو مال حلال كوجودنا أجربوا كهلية صدقوا كله وقرمة ومركز النية هجاج قصة كاغو مركو هجاج سنة هاي والنية آد كوجور سنة يصير ريرك كوسا ما يسنة يسا أي تهاي أدوغنا كو إلى شنو ريركاغا كو إلى المو وناكسن نية وناكسن أياد كسب آخرها وأجر كهليسا فإذا كي كمت فإذا إنك وحى كمدا تكوين اللبنة الأولى من لبنات المجتمع الصالح مجتمع بلوكيتيس أما أساس كيسي وقويسك قويسك مركو اسمه قويسك لنا اسمه قويسس بدنو يسود تجيبا مجتمع كردشا يعني قويسسكو أفراد بعدالس أفراد قويسسكونا مجتمع إداليا سيداس دراد يدوح اللي هذا وبلوكيتي يرجعي أساسي جها مجتمع قويسكو قويسكو هدو مركا قويس هجاجسن نقدو قويسسكو هجاجان مجتمع وهجاجي مركا أونو جا أساسي جه مجتمع وككعه أيها قويسكو يهو فإذا دا سنا وكوشرته يعني قرابو ليه أو مرتبو ليه أو مضنو ليه أو حجالبو ليه أو حكتو ليه وحصورنا ما إسكو هذا حدنا فإذا كاسا كوشرة فإذا كوشرة وحكم ذا تكاليف تأي مسؤوليات كالنرشة إنك يحاسكو قيب صدان وذكتي إنه نرشني مسؤوليات كذا هل روح ما وذا قبان كرو مركا حاس مركا ديالتو قري يالتو الشقة دي بيكولا قيب سنيس وحي قري وكو صاب سنيد يدا قبانيس كوشي بي هقاتشن عنتدي بي ديارين علميه بي كورين جويجي مركات سود داشا هتكون نصن لهيد بي سي ديارين يا هولي يوردن بي كوسي كلا ركبي أذوقنا بنانك هتكون مقانتو وحي لغو نولان لها بات سور هذين ما انت دنوكا واتقرف ليه هايو حمال أما قناعسي أما بير أما وحوم بعد ملكا كينيس مرشقة دي بايدين قيبس هذا رادوغنا فوف أنا قلنا وزير كي أرميها قدها نهاية هاوشن قدها نقمانيها الشقة دو مركا وينو قيبسانت هذين التاسي تشيري لهين أيضنا وي كديد ملهين أذوقنا واد كديد ملهين بل كورنا دي لغو يلهدو ما ننتين سو حمالو هبين كي مركا تمادنا شكدا قل يا oo sariirta goglo oo weela shaqo oo guriga nadiifso warmaanta dhan waan daalanaay waa rafaadsanay shaqadan gurigu maxay ma isla qaban karti Soomaali tan marka iyadii baa loo dhiibay iyada lafteeda hadii la yiraahdo labadaba isku dar gurigana hagaajiso waxaad ku noolaan lahaydna keensa hadii la yiraahdo laba iyadana iskuma gunti karto laakiin ilaahay xikmadiisa oo fiirsa hawshi baa la qaybiyo ayadana qayb ka soo bax baa leeyahay aduguna qaybta ka soo bax iskaashi baa marka jira shaqadii baa la wada qabanay kadeedkaasi wuxuu haystaa annaga ilaahay uu naga badbaadiyo guriyeenu mar dam ay dhisan yihiin xasaskii dhisan yihiin shaqadii inoo qaybsan tahay yaani guriyuhu waa guriyo raaxo waa guriyo lagu nasto laakiin dadka qaanuunka ka baxay dhibaatada haysata ma taqana haweentii naagtiina way shaqo tag ninkiina wuu shaqo tag duurka sida loogu maqayaa habeenkii la soo xaro ولا وذا دالي يا شاه سوكرني يا سرت جوجل وهذا رو هبينا جوجل هبينا أنا جوجل واحد هبينا هذا كذا قال لي أنا هبينا أنا قال أنت كلية ما دام الله فوفي ودل صوشة قيستي ميدو حليه أنا كان عشرة بحينها يا أدونا قدر بح وحلا إذا هذا نينك جوري مسؤول كوضع أمجرو إلا وادد محوها هاي خريبان أو نظامكي قانونكي بيكبحين حتى جوريجا دحديس جوريجا وحلاقي يا منا إنه صحمة سوي بي منا بكيرية سوي بي وحميش هي ولا كلا ليه وعسكو قصر مج إلهي تبارك وتعالى مركز سيد وحوها بي أوفيرسو هاوشان لقى مارمانكا هو يلو دي بي جوريجا تعالى
haddana ilaahay amarkii dabeecaddeeda ilaahay ku abuuray bay mulaa'im ku tahay dabeecadda ilaahay geliyey bay munaasib ku tahay ka daali mayso maanta dhan inay gurigaa hagaajiso inay kala dhigto inay sariirta dhex u jeediso inay gogosho inay jikada gasho inay dabka gasho inay raashin kariso wayba ku raaxaysanba haddii la yidhaha kaalay bannaanka u soo yarabaxoo dhowr jawaan qaadoo lacag baad ka heli laha way rafaadi soo saas ma way rafaadi oo maba qaadi kartaba alleheed alle waa malay biyihiisa ka dhexbaxay wa adigana haddii lagu yidhaahdo shaqadaa bannaanka waa lagaa soo qabana kaale guriga ka shaqee oo raashinka kari jikada gal oo carruur tahay haddii lagu yidhaahdo wixii kale oo dhanna islaantaa soo qabanaysa raali haw adiga uun shaqada guriga qabo ma qaban kartid yaa carruurtaa yaryarkaa baad u dulqaadan karta waxaa lagugu imaani adoo midna feedhay midna jafay midna laaday maba noolaba carruurti wixii intaa ay ku rafaadayso iyadoo ay intaa u dulqaadanayso adiga hal saac ma hayn kartid hal saac uma dulqaadan kartid ilaahay baa iyagana dabeecaddan iyo sidan u abuuray raggana u abuuray inay adkaysi u yeeshaan shaqada bannaanka ayagana ilaahay wuxuu ku abuuray shaqada guriga inay ragga uga adkaysi badan yihiin waa qayb rabbi tabaaraka wa tacaala waxaan inaga shaqo ku leenahay ma laakiin waa taqsiim iyo tawsiic rabbaaniya marka mas-uuliyaadkii nolosha oo la qaybsado oo la iska kaashado iyadana waxay ka mid tahay ahdaafta ugu waaweyn iyo faa'iidooyinka ugu waaweyn ee guurka laga helo faa'iidooyinka guurku marka waa fara badan yihiin oo intaa iyo inka badanba waa yihiin inta aan kaga gudubno insha Allah tacaala aadaabta qaarkood aan tilmaano marka waxa faa'iidooyinka leh ishawadaada ku gudan ee carruur ku heli ee nolol degan aad ku gaari jidkee loo maraa way marka aadaab u baahay aadaabtiisa waxa ugu horeeya waxa la yiraahdo xusnul ikhtiyaar in aad doorashada hagaajiso haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba cidda nolosha kula wadaagaysa ee guursanayso waa inuu noqdo cid aad ka fiirsatay oo ka baaraan degtay oo doorashadaadu waa inay tahay mid wanaagsan asaaskuna waxa weeye iyo miisaanka aad wax ku dooranayso waa diin iyo akhlaaq weey diin iyo akhlaaq taasa asala hadduu ruuxu diin iyo akhlaaq wax ku dheeriyahay oo inta wax la dheeriyahayna waa waxaaga wax lagu dar laakiin ruux waa inuu ruuxu yahay saalix ah ruux haddaad heshiisaanna aad wanaag ku wada noolaanaysaan haddaad heshiin weydaanna si wanaagsan aad ku kala bixi kartaan oo qaanuun iyo xuquuq kaaga socon kara waa inuu ruux yahay waa inay tahay hadday hooyo tahay xaas tahayna ilmahaagii iyo gurigaagii ciddii aad ku aamini lahayd oo ilmahaaga korin lahayd oo adigii aad isku aamini lahayd waa inuu ruux saalix yahay sidaas daraadeed asalku waa in ikhtiyaarku uu noqdo waa in labada dhinacba dad diin la ay noqdaan xadiiskii nabigu waa kii ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiid abi hurayra fi saxiixayn tunkaxu almar'atu liarbacin haweenta afar mid baa loo guursadaa waxaa loo guursadaa lijamaaliha walimaaliha walixasabiha walidiiniha qaar dumarka waxaa loogu xishaa xoolay leeyihin xoogaa yar bay haysataa aduguna waad iska baahantay mid waxaa loogu xishaa sharafteeda reer sharafle bay ka dhalatay mid waxaa loogu xishaa qurux bay leedahay weji bay leedahay mid waxaa loogu xishaa diin iyo akhlaaq bay leedahay intaba ibni aadamku dumarku wuxuu ugu xisho wey markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam fadfar bidaati diini taribat yadaak midda diinta le ku guulayso gacantaadu dhulacday war halkaa xoogga saar oo miisaankii miqyaaska aad wax ku guursanaysa ha noqdo diin ma leedahay asalna waa basaas alطayibaatu liلطayibiin wاlطayibuuna liلطayibaat dadka wan wanaagsan rag iyo dumar way isleeyihin inta xunxunna rag iyo dumar way isleeyihin alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat naagta xun nin xun baa leh ninka xunna naag xun buu leeyahy naagta wanaagsan haweenta wanaagsanna nin wanaagsan bay leedahay ninka wanaagsanna xaas wanaagsan buu leeyahy waa saas yani الطيور على أشكالها تقع شمبر بشمبر كسول الدولايو دي لبا شمبرون اسكو نوعين اسلا دولي مايا أدور دور صونو أهل الدين ميدان أهل الدين هين إن هذا يوا خلق يا أما أدور إن أهو أهل الدين نين أهل الدين هين إن تقول ستا يوا خلق
labada dhinacba waa u yaala xadiidkii nabiguna wuxuu sallallahu alayhi wasallam idha ataakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuuh hadduu idin yimaado nin aad diintiisa akhlaaqdiisa ku kalsoontiin u guuriya haddaad yeeli weydaan fitna iyo fasaad ballaadhan baa dhacaya marka ninkii inantaada aad siinaysay ama walaasha aad siinaysay waa inuu noqdo nin diin iyo akhlaaq leh wixii inta siyaada ka ah waxaaga wax lagu dar ninkii diinna waa leeyahay akhlaaqna waa leeyahay xoolana waa leeyahay waa taajir waxaaga wax lagu dar waa qurux buu ku darsaday waxaaga wax lagu dar waa ya magac iyo reer wanaagsan buu ku darsaday waxaaga wax lagu dar waa laakiin asaasku muxuu yahay asaasku waa inuu diin iyo akhlaaq leeyahay asaaska hadii la waayo waa khalad ninkuna inantiisa in uu u guuriyo ninaan diin lahayn raximkii ka dhaxeeyay qaraabtinimadii wuu jaray mas'uuliyadiina wuu dayacay marka waa inuu asaas ku noqdo ahlu diin waa inuu noqdo waa inuu diin noqdo asaaska la isku guursanayo ama muxuu ahaayay la isku siinayo wixii kale ziyaada ah waa meesheeda waxa kamida aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo shariicadeenu inoo fasaxday labada ruux ee isguursanayay waa inay isku qancaan oo ay noqdaan dad is arkay ninku inanta uu guursanayo ama haweenta uu guursanayo waa inuu fiiriyo intuusan guursan inantuna sidoo kale ninka loo guurinayo waa inay ku qanacdo waa inaan la isqasbin waana in majhuul iyo jahaale iyo wax aan la garanaynin la isku gelin waa حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد تلماميسا حديث جابر وكله يا حديث مغيرة بن شعبة يا حديث أبي هريرة ضمان تود واحد تلماميان إن أنت أن ليسكور سنين ليس أركه وجابر النبي يقول صلى الله عليه وسلم هو أنت تكور سنة إسكسو أرك صافي ربكوير مركز هو عن طمعي بودي إن أنكور سدو هويني ربني سلمة سكران كو أركي وايو intaan u dhudhuuntay baan arkay buuri man meel ka arkay buuri wax i qanciyay markaas aan sidii ku guursaday Mughira ibn Shu'ba xadiidkiisuna wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii guur raba ha fiiriyo maxaa yeelay fa innahu ahra an yu'dama baynakuma in dhaxdiina la islaaxiyo oo iswaafaqdaan oo isfahantaan oo kalsooni dhaxdiina martaay taas u dhow ruuxad guursanaysa hadaadan arkinba la bini aadamka dooq baa jira oo bini aadamku waa ku kala gadisan yahay nooca uu rabo inuu guursado haduusan arkinoo isagoo arkin la isaga meheriyo oo markii gogosha guriga loo keeno wuxuu filayay ay noqon weydo ama inantii ay noqon weydaba ninkay filaysayba noqon waay soo niyad jab imaan maayo ya niyad jab ayaa imaanay kadibna waxa imaanaya in gurigii kalsoonidii iyo xasiloonidii iyo ay meeshii lunto kalgacaylkii inuu lumo si taa looga taxadaray marka shariicadu leedahay fiirada ay markaasi amraysa oo inay labada ruuxba is arki karayaan laakiin is aragaasi waxa laga maarmaana inuusan ahayn khalwo la soconin khalwada waxa la yiraahdaa bimaana inaad adiga iyo iyada kaligiin inaad meel ku cidlootaan meeshana ay xumaan ka dhici karto taas iyada lama fasixin bal nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam laba ajnabi ah haday meel ku cidloobaan shaytaan baa sadeexeeya waana midda dhalinyaro badan ay ku aafoobeen oo ku baabeeno dhibaato male waxa la leeyahay waa haasaawayna waa shukaansanayna طيب maxaa meesha yaala marka labaduba waa baahan yihiin ninkii odayga shaytaanna saddex buu ku yahay muxuu ka shaqeynayaa marka ya madaxu salaaxaya madax salaax wala yiraahdo ma jiro kan xaqu ka soo riixaya kadibna shaqadiisu qabsanaya waana ka dhaqaaqaya marka waa min baabi sadid raa'i shariicadeenu waxay taqaanaa wixii ka hortag balaayadu intaysan dhicin baa irida laga xidhaa marka khalwada lama ogolaanin laakiin maxaa loo ogolaaday iyadoon khalwa dhicin in la is arki karo is argaasi marka xikmadda isagana ku jirta waayahan dambe dhalinyaradu waxay aad ugu ibtilaysan yihiin inay wax ka dhaxraadsadaan waxa la yiraahdo internetka qolalka iyo
meelaha la isugu yimaado Facebook iyo meelaha inay wax ka dhexraadsadaan meeshaas muska xidhka ah ee balaaya dhex taalo yaa wax laga dhex doonahay markaasa balaaya aadan garanaynin baa kaaga soo dhex baxaysa war iyo sheeka bilaabanaysa sawir baa la isu soo diraya ama waxa laga yaabaa toos in la isu arko طيب lama yaqaano ruuxani muxuu ahaa xageebu ka soo jeeday qoyskee ka dhashay dhaqankiisu muxuu ahaa akhlaaqdiisu muxuu ahaa inta muxuu ahaa hawshuba ku dhamaato baa la leeyahay khalaas waa isku qanacnay ama waxa laga yaabaa in sawir waa hora la isu soo diro sawir waa hora sida dadka qaar kood ku dhacdo kale mid baa saas oo kale loo sheekaystayo malaha sawir waxay u soo dirtay iyadoo yar oo ina yar ah oo malaha 20 jir ay u soo dirtay markaana waa 40 jir sawirkii markay u soo dirtay waa qancay markuu qanaacadii qaatay oo hal meheriyay yiri oo meherkii dhacay oo laysu yimid meeshuu filahayay ina 20 jir ah 40 jir baa u yimid markaasuu yiri ma aha midaan guursaday tan ma ahayn anu inaan 20 jir aan guursaday waana ka sawirkeedii waa iyadii laakiin waa waqti hore waa sawirka sidii doona la iska dhigi karaa waxaan garanayaa Nairobi in dhalinyaro oo joogay ayaa sidaas oo kale mid baa sawir u soo dirtay oo dibadaha joogta sawirkii markay u soo dirtay waa ku qancay waa la iskuursaday kadibna waxa lagu ballamay in la isugu yimaado Kampala la isugu yimaado Kampala la isugu tagay waa caasimadda Uganda markii la isugu tagay ayadina xagee ka timid isaguna meeshu ka tagay markii la isugu tagay oo uu reer qaraabo ay ku soo degtay fadhigooda la isku qaabilay ayaa aragii ugu horeysayba gabadhu ama inantu waa naafo way waa haweenay naafo ah oo dadkan curyaan ahaan taawa asagana waxa loo soo sawiray iyadoo taagan oo mustaqiim ah hadhow markuu meeshii tagay mise ruuxu waaba ruux curyaanaba tala faraha ka baxday muxuu sameeyay isaga noo sheekeeyo wuxuu yiri naxdintaan naxay buu gurigu jaranjar u lahay jaranjaradii baan ka soo degi waayay jaranjaradii silac garabka la qabtay buu markaan ka soo degay naxdintaan naxay arinta marka khaladka dhalinyaradu ku dhacaysa waxa weeye in shabakada dhexdeeda wax laga dhex raadsado oo meeshaasi wax laga dhex doonto waa khalad aafaad fara badan baana ka dhaca ibtilaa ka dhacda dhalinyaro fara badan intay wax raadinayeen bay zina iyo xumaan ku dhacaan kuwa fara badan waxay ku dad xunxun bay la kulmaan marka in arinta iyada taxadarkeeda aad yeelataan ayay u baahantood aad isaga jirtaan tii hadii guur la rabana dad la yaqaan iyo qoysas la yaqaan iyo inama la yaqaan iyo muxuu ahay baa la helaya haddii wax kale loo jeedo in la dhoofo la doonayana dhoofku guur ma Soomaalida hadda soo sheegaynin muxuu ahay ujeedooyinka loo guursado in lagu dhoofo kuma jirto in lagu dhoofo ujeedooyinka kuma jirto waxa dumar looga xisho oo afartu nabigu sheegeen kuma jirtaba ha ku dhoofiso waa arin marka yaani wax weeyaan aan meeshaba ku jirin mustaqbal hadaad rabto waa in arintaadu caddahayo cidda aad guursanayso hadaad ragtahay iyo hadaad dumar tahayba inay arintu caddahayo waxaan iyadana dhib lahayn oo qodobka xiga uu yahay baraarujin mudan aan dhibaato lahayn dadku intayna isguursanin inay wada hadlaan oo hasaawo iyo sheeko goor in laga wada hadlo dhib ma leh laakiin ayadana waxay u baahan tahay in la ilaaliyo aadaabta shariicada oo laga ilaaliyo maalan ereyooyinka uu malabku ka da'ayo oo markaaba shahwada iyo dareenka kicinaya oo labada isqabta hadalkay ku wada hadli jireen inaad ku wada hadashaan idinka oo aan isqabin oo ajnabi kala ah iyaduna waa xaraan iska cad oo iyaguna hadalka dabciyaan aduguna hadalka dabciso meel la isla gaaro marmarka qaar kood xataa muxuu ahay dareenkaba lagu dhameystaba ay dhici karayso waa ajnabi bidadkaas kaliya fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad hadalka dabacsan hadhiina lay oo marka kii cudurku qalbiga kaga jiray damac gala marka aadaabtaasi iyadana waa in la ilaaliyo
haddii haasaawaha iyo shukaansiga guurka marka lagu jiro waa inaan dawaabidda sharciga laga bixin waa in hadalka lagu wada hadlayo uu noqdo hadal edebsan waa inuu waqti leeyahay uusan noqon sheeko dheero iska daba dheero alfa layla wa layla oo kala ah oo aan dhammaad balahayn oo silsilad ah waa inuusan noqonin wax qadrul xaaja ah kadibna laga gudbo inuu noqdo waxyaalaha aad ka digtoonaanaysaa waxaa ka mid ah oo shareecadu diiday alkhitba cala alkhitba haweenta aad rabto inaad doonto waa in aad hubiso inaan lagaaga horreynin haddii hortaal la galay oo lagu jiro ha ka dabagelin ilaa uu ka baxo ama uu ku fasaxo yidhaahdo war waan soo hungoobay ama waan ka noqday gal nabigeenna wuxuu yidhi sal alla alay wasalam laa yakhtub axadukum calaa khitbati akhiihi midkiin yuusan walaalkii doonidiisa ka duldoonin ilaa uu ka baxo ama uu u idmo buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayadana taa waa inaad iska waa inayna fallisaad meesha ka dhexin fallisaad inaad isfallistaanoo walaalka aad ka daba gasho sida beec oo kale wey laa yabic axadukum calaa bayci akhiih tii oo kaleetay la mid waxaa la mid ah oo aadaabta loo baahan yahay axkaamta in la ilaaliyo ka mid a muhimka ah inanta waa inaad ka guursato ehelkeeda weligeeda waa inaad ka guursato aabbaheed walaalkeed adeerkeed in adeerkeed waa inaad ehelkeeda ka guursato waa in laga fogaado waxa la yidhaahdo la bixidda dumarka ama la rooridda dumarka inta la kaxaysto meel kale lagu soo mehersanayo masaafada loo yaqaan arrintaasi arrin saxsan ma aha qur-aanka kariimka wuxuu faa'iideynayaa guurka saxda ee layna amray waa dumarka in laga guursado ehelkooda nebiguna sal alla alay wasalam wuxuu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahidi cadlin guurku ma asaxayo haddaan weliga laga guursanin xadiidkii caaisha wuxuu isagana guur kasta oon weliga laga guursanin guurkaasi wax jira ma aha haweenay kasta oo guursata weliga la-aantiisa guurkeedu ma jiro saddex goor nabigu ku celiy sal alla alay wasalam waa madhabka imaamu shaafici caleyh raxmatullah umka iyo risaalada labadaba waa ku caddeeyey madhabka kutubtiisa mukhtasaraadkuna way caddaysay arkaanta guurka waxaa ka mid a in weliga laga guursado in weliga lagala tago meel kale lagu soo guursado waa dhac ya waa xaq aad dhacaysa wey xaq aad dhacdayna saa kuma xalaaloobo taa macnaheedu waxa wey wixii tegay ee dadka aqoon darro u geysay ay wadaadda ku khaldeen ay sax moodayeen sideedaa la isaga dayn ka daba tag ma leh guurkii horena saasuu sax ku yahay carruurtii ku dhalatay laga daba teg maayo saasay sax ku yihiin laakiin markii aqoon la yeesho la ogaaday inay wixii khaldan yihiin ciddii sidaa wax ku guursata guurkaasi ma saxsana waa inaad saxato wey waa inaad saxato waa ruuxii aqoonta la waa aqoon darro wixii horay ugu dhacayna lagu noqon maayo saasaa lagaga gudbayaa ayadana waa qodob muhima qodobka kale ee muhimka ah inaan baraarujinno wuxuu yahay guurka waa in la iclaamiyo guurka waa inuu wax muuqda noqdo wax qarsoon oo lala dhuumanayo waa inuusan noqonin waxaan u naqaano khudba sireedka ama aan u naqaano maxaa kaloo dhana ya guurka qarsoon ya meherxadkaan doonaya kaas meherxad ama khudba sireed oo guur qarsoon ah wax jira maaha nabigeenna wuxu uhi sal alla alay wasalam aclinu nikaax war guurka muujiya qarinta ka daaya xadiidka moxamed ibnu xaatib axmed iyo arbacadaa soo saaray abu daawuud mooye ayaa nebigu wuxuu leeyay sal alla alay slam faslu maa bayna alxalaali waalxaraami darbu daf waasawti fi nnikaax guurka xalaasha iyo midka xaaraanta waxaa kala sooco lagu kala gartaa in durbaanka la garaaco nikaaxana laga sawdeeyo nikaaxa marka sawd dhaco oo alalaaska iyo durbaanka iyo buraanburka iyo ogeysiiskaasi markuu baxo kaasaa guur saxa laakiin guur lala dhuuntay oo qarsoodi ah guur ma aha sidaasi waxaa soo guurinaya sidoo kale shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay nikaaxu siri inuu baatil yahay waa ijmaac buu leeyahy nikaaxa qarsoodigaa inuusan jirin layskuma khilaafsana buu leeyahy marka guurkaaga guur bannaanka yaa laha noqdo xalaal maalin baa la qashaaye dhuumaanaysiga iska dah ya
tuugaysigan iska daa waxaasi guur ma aha guurka saxda ah waa inuu noqdo guur muuqda waliiman nabiga dhigi buu sallallahu alayhi wasallam awlim walaw bishaat hatta neef ariyaan ha noqdo wuxuu waliima ka dhig buu nabiga sallallahu alayhi wasallam ya waliima la yimaado xaflad la yimaado dadkii oo ka qayb gala hadaan kari karin ugu yaraan waa inay laba marxaati meesha joogaan ugu yaraan laakiin waxa weeyaan wixii inta ka gadisan ee qarsoodida lama ogol waxa kamid ah midalan markii la aroosayo xafladaha arooska iyo aqal galka waa in laga ilaaliyo yaani wixii shariicada khilaafsan rag iyo dumarka isdhex boodaya muxuu ahaa haweenta la qaawinayo aroosada la qaawinayo oo loo xidhayo maradan la yiraahdo taajka la yiraahdo cawradeeda iyo dhibanaanka la dhigahayo yaani muusiga iyo tiimamkan ciyaara fasaadka wada iyagana in laga ilaaliyo xoolahan faraha badan ee la baabi'inayo in laga ilaaliyo balaayadan meelay naga soo gashay ma qana boqolkan baabuur ee la isdaba dhigay dhiiqda ku haya ee aan macna faa'iideyneen iyagana xoolahan la baabi'inayo laana xoolahan waxa la rabaa inay meel galaan xoolahan guriga lagu hagaajisto bari masruuf ha laga dhigto laakiin waxaan macna lahayn in lagu baabi'iyay ayaduna waa khalad waxaana laga yaabaa hadii aadan gurigaaga yaa dhisaysa yagleelayso hadaadan ka ilaalinin mukhalafada sharciga iyo rabbi yaani ka cadaysiintiisa hadaadan ka ilaalin ku barakoobi maayo midha fiican iyo carruur fiicanna ka goosan maysid waxaana dhici karta cuquubada halka ka dhalata inaad ku kala dhaqaaqdaan mar aan tagay Australia 2001 magaalada Melbourne ayaa waxa la ii sheegay nin Soomaaliya oo xoogaa intuu urursaday xoogaa lacag isugu yar hagaagtay ba meesha ku aroostay inaan ku aroostay markuu aroostay xaflad weyn oo wuxuu dhigay malaha lacag aad u far badan ku baabaaday markii dambe wuxuu ba gaaray diyaarad helicopter intuu kiraysto inuu yiraahdo magaalada ha lagu soo wareejiyo $50,000 ba diyaarad helicopter lagu kiraysanay markaas inta la fuulaa magaalada lagu soo wareegay isaga iyo tii uu aroostay waa ilaa wuxuu qadaray hal usbuuc markay wada joogeen kabtaydu ma aragtay baa ka dhacday kabtaydi ma aragtay la kala carar sababtu maxay tahay meel ilaahay lagu caasiyay miyuusan dabgalayn dabba galay caruur fiicanna ka imaan mayso tawaafuq iyo wanaagna ka imaan maayo meel ilaahay lagu caasiyay tabaaraka wa tacaala marka in laga ilaaliyo arooska laga ilaaliyo khaladaadka sharciga laga ilaaliyo lagu gaabsado arooska islaamiga خلاص الحمد لله حفلة دقو gurigaaga hagaajiso gabadhaada lagu soo qurxiyo wabillahi tawfiiq intii la rabay inta sax inta Allah isugu barakeeyo inta ka dambe laakiin waxyaalaha kale la warwareejinayo meesha kuma jiraan waxaan kaga baxayaa qodobka aan kaga baxayo uu yahay in guurka laga daayo tacqiidaadka iyo adkaynta laga daayo guurka hala fududeeyo hal laga daayo takaaliiftan ama xoolahan inanta ama haweenta la guursanayo reerkay ka dhalatay ee codsanayaan waxaan la yiraahdo yaradkan faraha badan ee shartiga iyo xoolahan shartiga hadaan la bixininba aan la guursanaynin arin saxsan ma aha hal la bedelo waa arin jaahiliyo khaldan wana arin meel aan wax laga raadinin waa inantaada aad dhashay ama aad walaashatihiin ama adeerka aad u tahay markaad guuriso hadii lagu maamuuso oo lagu garto waa qadarin qaado waa nooc ikraam ah dhimale laakiin aad sharti ka dhigato hadaan inta la soo tubin oo intaasoo $1,000 la keenin ama waagii hore geel iyo fardiyo qori hadaan la soo dhigin meesha wallan dhura ka dhacayn warkaasi war saxsan ma shartiga xoolaha lagu qaadanayo waa xoolo xaraan marka waxay kamid tahay waxyaalaha guurka adkeynay waxa kamid ah waxyaalaha guurka adkeynaya la doonayo in sidoo kale la iska daayo guurka kharashaadka faraha badan ee ku baxaya ama xafladda arooska xafladda ama muxuu ahay waliimada ama guriga alaabta la dhigayo ama muxuu ahay kharashaadka kale baxaya marmarka qaar kood waxaad arkaysaa gabadhii markii la meherinayo inantii markii la meherinayo wax xaflad baa la qabanaya kharash baa ku baxay marka la doonaan dhila markii la doono kharash baa baxay marka la meherinayo kharash baa baxay marka la guri geynayo kharash baa baxay markay shaash saar bay dhaan hadana shaash saar hadana kharash baa baxay ma qaan hadana waxay yiraahdaan meelaha qaar kood waxa laga yaqaan wax la shahrul asalo
markay bil wada joogaan bay isla safraayaan oo soo wareegayaan meelahaas kharashka lagu soo baabi'inayo war waxaasoo dhan waa tacqiidaad inay wax kharibaan mooyee waxba haba yaraatee ma kordhinayaan waa in marka la yareeyo oo guurka la fududeeyo oo dhalinyarada rag iyo dumarba hablaha iyo inamada la isu fududeeyo say isu guursan lahayn isu heli lahayn laana hadii la adkeeyo zinada fududaanaysa waana saas dadkii waa isu baahan yihiin haddaad marka aad kala dhex dhigtaan derbiyo iyo shuruudo dee bannaanka la iska raadsanaya ya bannaanka la iska faaxishada iyo xumaanta badanaysa waxa agteena ku badanaya guumaysaha badanahay guumays dad waa weynaaday oo guurkii dhaafay oo caruur dhali lahaay oo faa'iido ka imaan lahayd baa imaanaya sida carabaha ka jiro dhan imisa gabdhood imisa inamooda 40 jir 50 jir aan guursanin aabaheed baa irida u taagan oo le xoolo ilaa laga keeno maya ayadii baa shuruudo adag la dhigay intaasoo dahab intaasoo meher intaasoo kana intaasoo guri ah war waxaasi haday aafadaasi ina gasho dhibaato weyn baa imaanaysa waxa loo baahan yahay guurka fududeyntiisana kamid ah inaynu barano waxa la yiraahdo nikaaxa jamaaciga nikaaxa jamaaciga waxa la yiraahdo dad ummadaha qaar baa ku dhaqma khaliijkaad aragteen inaga dhaqaale badan baa ku dhaqma waxa la sameeyaa dhalinyarada 10 kamida ama 20 kamida baa la isla sugayaa kadibna guurkooda hal xaflad baa looga dhigayaa hal xaflad meeshii ay bixi lahayd 10 xafladood kharashkooda hal xaflad baa loo sameeyaa oo si fiican loo maamuuso dhag 10 nin baa ka wada faa'iido ku guri galay waxa la yiraahdaa nikaax jamaaci la yiraahdaa nikaaxa jamaaciga marka in la abaabulo kharashka lagu yareeyo waxa kamid ah asaaliibta qiimaha badan ee casrigan hadda aad loo isticmaalo in la asaaso jamciyaad la yiraahdo jamciyaadka guurka ya jamciyaad kaba shaqeeyaba dhalinyarta iyo dadka inay isu guuriyaan ha meel xafiis baa u furan gabdhaha waxay geysanayaan muxuu ahaay report-kooda muxuu ahaay telefoonkooda muwaasafaadkooda ninkii wuxuu imaanayaa meesha wuxuu leeyahay waxaan rabaa muxuu ahaay inal 25 sano jirta oo midab kaale oo da'da ah oo aqoontaas shuruudiisu isagana geysanahay sana waa laga qoraya file meeshan ku taala waa la isla raadsani marka nin walba miduu rabay mid walbana midii rabtay baa la raadsanaya markaas la isugu guurinay ayadana jamciyaad baa la yiraahdaayo zawaajka sameeyo guurka sameeyo marmarka qaarkood tujaartay lacagta ka soo ururinaya ganacsatada ilaan in la isu guuriyo dhalinyarada waa maqsad weyn maqaasida waa weyn shariicada ka mid ah tilmaamin marka ganacsatada dhaqaale laga soo ururin dadweynaha dhaqaale laga soo ururin dhaqaalahaas la isugu guurinaya caqabaadkan adag yaa laga saaraya marka kadibna iyaga ismaamuli doona insha Allah ta'ala noloshooda la kaca kufaya insha Allah ta'ala marka qaabab fara badan in guurka aan fududeyno carruurta dhalinyarada isu guurino guurka la dadajiyo fitanka iyo fasaadka iyo fuxshiga iyo zinada laga hortago sida aynu ku taranno insha Allah ta'ala ayaa maqaasida ugu waaweyn kamida ilaahayna tabaaraka wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu wixii sawaab ajir naga siiyo wixii khata ama khaladana ilaahay tabaaraka wa ta'ala inoo dhaafo hada billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkii iyo xasanaadka kaga abaalmariyo xaaladada qiimaha badan runtii aad iyo aad loogu baahan yahay oo noo soo jeediyay baahida loo qabo muxaadaradan guurka waxay ka muuqataa su'aalaha roobka nagaga soo dhigay ee miiska hadda maaragta qariyay ee dhalinyaradu ay soo qorayaan run ahaantii in badan oo su'aalaha ay hor yaalla ka mid ah sheekhu waxa uu kaga jawaabay muxaadarada dhexdeeda ayuu kaga jawaabay fadiilada sheekh su'aasha ugu horeysa mawduucan ku saabsan waxa ay tahay ama saailkeena soo weydiiyay uu leeyahay sheekh miyuu ansaxayaa gabadh ninka guursanayay guureeyey haddana loo meheriyo iyadoo uur waa wax aad u dhacaway arrintaas bismillahi rahmaani rahiim ومسألة خلافية أوي وفقهاء اسكو خلافسين قاربا قبه إن نكاح أصحي أو كم يدعي الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي وحيليه النكاح أصحي قارن وحيليه النكاح الصح معها من أصحيه وحنا كم إذا الإمام أحمد بن حنبل عليهم الرحمة جميعا مسألة سيدة إلى حق بدني وحوي إنه سنقور كاسي أصحينين أو سنصح هين إلى أي أمشه
waxaana laga faa'iideysanayaa cumuumka iyo iطlaaqa aayadda qur'aanka ah wa ulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun haweenka uur kale lama kala qaadine ajasha lagu guursan karo wax weeyaan iyo wakhtiga la guursan karo waa markay umulaan wixii ka dambeeyay laakiin iyadoo uur leh xadhig ma qaban karo sida ka muuqata daahirka aayadda intaa waxaa ka muhiimsan inaan tilmaamo guurka la guurinayo haweenta uur kale zinada ah leh guurka la guurinayaa wuxuu u socdaa ilmaha la rabaa in laga dhigo ilmo sharci ah ilmahan horgalka ah ee nikaaxa ka horreeyey baa la rabaa in ninkan aabba looga dhigo arrintaasina madaahibtu ma qabto aan hadda tilmaamaynay aimadaasi ma qabaan ilmuhu waa ilmo zino waa ilmo garaca waa ilmo aan aabba lahayn waa ilmo hooyalo ina hooyaa la dhaha hooyadii buu ku abtirsadaa iyo abtiyaashii xaggoodu aadaa laakiin aabba ma leh ninka isaga ana wax ka dhaxeeya ilmaha ma jiro caruurtiisana maxram uma noqon karo dhaxalna kuma laha aabbana uma aha waxa loo socday Soomaali meeshii khaladka ka galaysana waxa weeye ilmahana la rabaa in ninkan aabba looga dhigo meeshana Shaafiicina ma qabo Abu Xaniifana ma qabo aymada kalena ma qabaan aabba uma aha bal Shaafiiciyadu waxay gaadhayaan inay yiraahdaan hadday gabadh ahaan lahayd meher baa u qaban lahaa ilaahay kaasi gaadhay ilmahana hadduu gabadh ahaan lahaa kan biyaha lahaa meher baa u qaban lahaa bay leeyihiin si u kala fog yihiin bay tilmaamayaan macna kii nooca ahaaba waxaan ka dhigaynaa marka inuu aabba u yahay oo abtirkii baan siinaynaa oo dhaxalkii baa wax laga siino caruurtiisu maxram u noqono waxa soo dhan baa ka dhalanaya arrintaas marka arrin saxsan ma aha laba gooraba wallahu a'lam jazakallahu khayran waxay la xiriirdaa su'aashii hore ayay la sii xiriirdaa wuxuu leeyahay haddii aan meherkaasi jirin gabadha mawaalidkeed ayaa dib loogu celinayaa maalan arrimo dhaca noocaas oo kale baa dhacday gabadhii uur bay yeelatay waa la isugu yimi ma waalidkeed baa dib loogu celinayaa gabadhii maxaa xal ah oo la samaynayaa oo de xagee kaloo la geynayaa de meel kaloo la geeyaad garanaysaa ehelkeedaa lagu celinayaa ehelkeedaa haynay laan haweentii zinada ku dhacdayba ee nabiga u timi sallallahu alayhi wasallam ee tii rasuulilaahi innaha xubla min az-zina xadda hal laygo oofiyo nabigu ehelkeedii buu dardaarmay inta ay ilmaha ka umulayso xanaaneeyo oo gacanta ku haya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka ehelkeedii baa haynaya oo dib loogu celin haddii markay umusho kadib ay isu guurinayaan marka la isu meheriyo de markaas xilku ha ka wareego iyaga laakiin inta ka horeysa gabadhu de ehelkeedii waa mas'uulka ah wallahu a'lam jazakallahu khayran wa ahsanallahu ilayk masaa'ilkan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano taashwadaadka waxa ay yiraahdaan ma banaan yahay taashwadaad baa laga isticmaalaa oo bahalkan cad ee maaragta dumarka loo geliyo ayaa noocyo ah marka midna waxay ula bixeen taashwadaad bay ula bixeen oo uu ka yara asturan yahay kan maaragta qafiifka ah ee dumarka caariyaadka ka dhigaya midna isagu da iska qaawanaanba xogaa farsamaha ku jirta halkaas su'aasha kale uu raaciyo waxay tahay waalidku hadduu ii diido hadduu isu kaayo diido annagu aan israbno maxaa tala ah bismillaahir rahmaanir rahiim horta taajwadaadka reer burcawn baan ka maqlay culimada burcad weydiinaysa alxukmu cala shay farcan tasawurihi baa la shayga markaad sawir fiican ka haysato baa la xukumi karaa marka culimada reer burcad taas idinka jawaabay ama hore uga jawaabeen suuro fiican kama haysto mid ka qaaqaawan baan anigu aqaanaaye la yiraahdo kaniisadu ka soo jeeda mid labaad hay su'aasha labaad haddii la isu kaayo diido annagoo israbno maxaa tala ah dee kala taga haddii la isu diido maxaa isku keenta xalujiye ayaduna raggu waa badan yahay mid waalidku u ogol yahay raadsato
adiguna dumarku waa badan yihiina mid waalidkeed ku ogol yahay raadso qasab ma meesha waxaan fahmayaa waxaad raadinaysaan wax la yiraahdo wuu wilaayo baxay waalidkii waa wilaayo baxay waan iska mehersanaynaa wax jira ma laana waalidka maxaa wilaayada loogu dhibay sideedaba soo inuu wax diidi karo wax ogolaan karo ma fala ta'dhuruhunna adli inuu samayn karo diidi kara laga garan oo hadii lagu bogi waayo ama dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada ama inanta iyo gabadhaba inaadan dhaqan karin oodan awoodeed ilaa hadii lagu arko te waa lagu diidi kara hadii lagu diidana te mid kugu qanacsan baad heliyaa meelaha ka raadso gabadh inantana u daa reerkooda u daa ayadana sidoo kale arintaasi waa arin laga maarmaan haday gaadho heer waalidku inantiisa uu u diido guurka sabab aan shariicadu ka garaabayninna uu ugu diido arintaasi maxkamadaha iskale markaa qaaliyada iyo maxkamadaha iskale iyaga fiirinaya hadii waalidka ay ka soo baxdo inuusan gabadha u danaynaynin isagu danaysanayo ama guurkii uu ka xanibayo maxkamaduhu markaas ay awood leeyihiin inay kala wareegaan xilka ay guuriyaan laakiin wax fawda la yiraahdo ma jirto fawda la yiraahdo waalid baa isu kaana diidayo meelahaas aan iska mehersanayna fawdadaasi diinta kamid ma wallahu a'lam barakallahu fiikum ahsanallahu ilayk kulli su'aalaha aan hayo qaar kamid ah hablaha soo qoray iyaga laftooda su'aalahooda inta gelinaysiyo weeye gabadhani waxay leedahay ma oran karaa meherkaygu waa inaanad ila guursan haddaan isaga meher u qabsado oo uu raali igaga yahay meherkaasi ma iga ansaxaya meherkiiba waxay ka dhigatay sheekhow inaanad ila guursan baa meher ii bismillahir rahmanir meherku culimadu waxay yiraahdaan waa inuu yahay maaliye ama manfaca maal u dhiganta waa inuu yahay maalka wuxuu u qaybsamaa cayn iyo manfaco u qaybsamaa ama wax la taaban karo ama waa manaafacaad laakiin waxaan maal ahayn meher ma noqdo qodobka labaad weeye hadday shardi ka dhigato ha ila guursanin sidaana aad ku guursato laba madhab ay culimadu qabaan qaar waxay leeyihiin shardigaasi waa baatil oo kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil ولو كان 100 شرط شرطigaasi diinta ma waafaqsana saas taraadid wax jira ma habeelay الامام احمد baa wuxuu leeyahay sharطigaasi hadaad gasho qoorta la gasho waa sharti laazim ah wuxuuna daliishanayaa xadiiskii in ahqqa ma awfaytum bihi min ash-shurut mastahlaltum bihi al-furuj sharti aad oofisaan waxa ugu xaq badan shartiga aad haweenta xubinkeeda ku xalaashatay حديث كاسو دليشنا يا إيو المسلمون على شروطهم إيو أثر كي عمر إيها محوها معاقد الشروط محوها معاقد الحقوق عند الشروط من أول مرني هذه أثرت يا حديث كاسو دليشنا إمام أحمد عليه رحمة الله وبالتالي وحول ليه روح أدو شرط كولاق لهوي أنت يا إسلام تقول سنة يو هدي هيلا قول سنة يواي أدو شرط كاقل وين يسلك قول سنة hadduu la guursado isagoo shardiga ku guursadayna xaq bay u leedahay iyaduna intay maxkamadda tagto inay isfasaqdo laana isaguna uu ka baxay iyaduna ay ka bixi kartaa way marka waxaan ku dhihi lahaa adiga mareeg aadan ka bixi karin marka qoorta la gal waan ogahay raggu markay guur rabaan caliyada ka daadanayso wixii la dhigaba uu dardaraa okay du saaraya wax kasta in badanna Soomaalidu waxay yiraahdaan muxuu ahay been baa lagu soo xirigeliyaa runna waa lagu dhaqaabay qaar ka tahayba iska wad oo meel bay ka dhici marka horeba ka taxadaro qoorta la galin hadaad la gasho Soomaha hawshu waa adkaan doontaa wallahu a'lam jazakallahu khayran saalkan wuxuu leeyahay sheekh muddada uu ninka doonayo inuu guursada oo inanta
la sheekaysanayo waa intee ma iska friga oo wala iska wadi karaa bahasha mise waqti xadidan baa jira waan tilmaamay muxaadarada gudaheedaan ku tilmaamay waxaan idhi wax walba qadar buu leeyahay waa xaaja loo baneeyay wal xaajatu tuqaddar biqadariha ka daruura qiyaas iyo qadar bay leedahay qadarka haasaawaha iyo shukaansigu waa wada hadal iyo in la isfahmo haddaad isfahamtaan oo guur isku fahamtaan wixii intaa ka dambeeya ay sheekadan dheer ee malaayacniga ah ee iska jiitamaysa musalsalka ah ayadu waa khalad meesha kuma jirto ama waqtigee dee waqti go-an oo 2 saac iyo 3 saac iyo maalin ah ma garan karo meel lagu sheegayna ma arka laakiin muhiimaddu wax weeyaan qasad bay leedahay hadalkani haddii qasadkiisa la gaadho waa inuusan sii socon afjarmo oo ujeedadii markaa looga gudbo way intuu hadalku socdona waa inuu hadal edebsan yahay saan tilmaanayba oo aan dawaabidii sharciga ka gudbin waa inuu yahay wallahu a'lam jazakallahu khayran su'aashan inaan baa soo qortay waxay leedahay sheekh gabadhu doof ma leedahay inay guursato ninka ay jeceshahay ama ay bixiso kharashka ku baxaya iyada guurkeeda xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu tilmaamayo albikru tusta'dan wathayyibu tusta'mar bu nabiga sallallahu alayhi wasallam hadday tahay inan aan wali la guursaninna idan baa la weydiin oo ninkaasi ma lagu guuriyaa baa la dhihi hadday idanto ama ay aamusto bimacnaa hallay guuriyo wey waa la guurin hadday tahay haweeney guur u horreeyey ayada amar baa la weydiinayaayoo ilaa amar ay bixiso lama guurin karo sida ninkaba ilaa uu ku qanco haweenta uu guursanayo inuu fiiriyo ka baaraandego ku qanco sidoo kale ayaa iyadana aan la qasbi karin ninkay rabto inay guursato ayay guursan waalidkeed iyo weligeeduna ku waafaqo in la qasbana ma ah in la qasbo oo waxayna rabin lagu qasbaayay ayadana ma aha taana waa in la ilaaliyo oo aan gabdhaha la qasbin inamada la qasbin hablaha inaan la qasbin waye taa waa mas'alada labaad oo ah kharashka aniga ma iska bixin kara waa markii labaad ee su-aasha la weydiiyey hargeysana waa lagu weydiiyey marka waxaan ku jawaabay waaba waxaaga wax lagugu dar ya waaba waxaaga wax lagugu dar haweeney iyadu kharashkeeda baxsanaysa ducaa loogu dari nin baa wuxuu yidhi islaan gabadh wadata ii raadi buuri waa haddii laba la helo buuri waa haddii laba la helo mataqaanaa ta hore anaa iskale wey ta labaad unbaad leedahay maan laba helo marka khayr allaha siiya gabadha kharashkeeda la baxaysaaye waa sadaqo wey kharashku sadaqo weye hadhow hadduu guri yeesho inay iyadu kharashka ka bixiso guriga hadday dhaqaalo leedahayna waa sadaqo kale wey waa meesha ugu fiican ee kharash lagu bixiyo iyadana guri ku samaysato ninkaan ay kharash kaga bixiso way heli kartaa laakiin mid baan dhihi lahaa haddiiba ay taasi dhacdo inta badan waxaa ka dhalata inay dumarku ninka ay kharash gareeyeen ay guriga u dhigeen kharashka ka bixiyeen inta badan aadamaha waxaa daba socota wax la yidhaahdo ku gallad sheegasho iyo ku manno sheegasho waa midda ilaahay leeyahay qowlun macruufun wa makfiratun khayrun min sadaqatin yatbacuhaa adaa marka miduun ka taxadar baan dhihi lahaa inaad ku dhibto ha dhowto oo tidhaahdo muxuu ahaay war annagaaba sidaadna meel bannaan baan kaa keennay waxnayaa maadaa meesha wax ku leba adoo miskiinaan meelaha kaa soo kaxeeyey oo mar walba ku dheg hadasho miskiinkan taasi waxay burinaysaa sadaqadii oo dhan bay burinaysaa soomaalidu waxay ka leedahay baashi waxay dhahaan haweenku wixii ay guriga ku soo darsadaan waa laga tuuraa bay dhahaan odayaashii horaa dhihi jira hatta hadday bakeeri waa laga jabiyaa bay dhahaan sababta waxa weeye sheegiisaa badanaya ku leeyahay wixii oo dhan gurigii oo dhan bakeerigeedu wada noqonaya marka gabadha waxaad dhihi lahaa ama inantaa dhihi lahaa khayr allah ku siiya kharashka bixi
laakiin gurigii yuusan wada noqoninun muxuu ahay bakeerigaagii iyo waxoogaagiiyo ka wada dhigin wax badan muxuu ahay ixtiraamkii iyo kala dambayntii iyo daacadii zawjiga iyo yayna saamaynin insha allahu tacaala wallahu aclam insha allahu tacaala waa soo ururinayna maadaama sheekhu muxaadaro kalena leeyahay labada su-aalood ugu dambeeya waayahay qofka su-aasha soo qoray wuxuu leeyahay waxaan culimada ka codsanayaa inay dumarka islaamka ah ku baraarujiyaan inay meherka jebiyaan haddii aad tidhaahdo waan ku guursanayaa meherkay qaali garanaysaa baalkii cirkaasu maraya 200 garaam oo dahaba iyo $10,000 $5,000 $6,000 ayaa la maraya sinadana sidaas ayay maaragtaa ku faafaysaa oo xumaantii ku faafaysaa wuxuu yidhi sinadiina way ogashahay meherkiina cirkaasay keenaysa arrintaasi arrin saxa maaha midda dambe ka reeb khayr allah ku siiya inan muslimadoo guurdoona meherkaa qaaliyayso waa wax la fahmi karo laakiin sinadiina way ogoshahay wax saxsan maaha masalada meherka nabiga waxaa ka sugan sal alla alay wasalam dumarka waxaa ugu barako badan kuwa ugu kharash yar kharashka in la yareeyadii aan ka hadlaya waxaa ka mid a meherka in la fududeeyo muhiimadda meel baa loo socdaayo guri in la dhisto carruur la dhalo la isku barakoobaa maqsuudku yahay laakiin in la kala shaqaysto meesha